كنت عن ونكسن إذ لهنتيمبا كنو سودوادا برنامجكينا ماولada dhallaanka waa ka daawataan marka soo booqataan channelkan ku leenahay YouTube ee dhallaan koriye toddobaadba sheeko cusub ayaa ku maqashaan caruuray sheekada toddobaadkan aad maqlaysaan waxa la yiraahdaa boqorkii 12 hablood dhalay aan ku bilaabo ee waxa la yiri bari hore ayaa waxa caruuray jiray boqor caan ahaa kana talin jiray boqortooyo ballaaran oo maamuli jirtay deegaan ballaaran waxa boqorku caan ku ahaa 12 hablood oo boqor ah oo isagu dhalay waxa waqtigiisa inta badan noloshiisa ku qaatay barbaarinta hablihiisa waxa uu barbaariyay sida aabba kasto oo wanaagsan ubadkiisa u barbaarsho wuxuuna ku bixiyay inta badan waqtigiisa oo dhan wuxuuna geliyay caruuray tacab adag habeen iyo maalin ayuu ilaalin jiray mustaqbalkooda ayuu dhowri jiray wax kasto wax yeelay sharaftooda iyo mustaqbalkooda ayuu aad uga dhowray marka gobolku dhacana wuxuu habeenkii ku hubsan jiray qololkooda ma ogolaan jirin mid kamid inay dibadda u baxdo markay guriga wada galaan ayuu albaabka u soo xiri jiray laakiin muddo kadib waxa caruuray soo ifbaxday mucjiso la yaab noqotay subax kasta markii waagu bariyo waxa boqor ku arkaa kabaha hableeysa oo wada googacay wada dildilaacay burbursan waxa moodayay markaste in wax kala hayaan barar badan ayuu soo iibiyaa kaba cusub saruur kastana ilaalidiisa ayaa u keenta hablihiisa kaba cusub balse isla subaxa ku xigaba kabaha waa googa'an sidii inay xalay oo dhan ku ciyaarayeen ama ay safar ku galeen boqorka iyo ilaaladiisa ay arrintani ka tacajabisay wuxuu isugu yeedhay dadkii wardiyaha ka ahaa waxa weydiiyay waxa kabaha hablihiisa habeenkii ku dhaca balse ma jirin qof kaliya oo u jawaabi karayay muddo ayaa la ilaalinayay cidina arrintan waa ku guuleysan weyday markii dambe boqorku waxa uu keenay fikrad waxa uu yiri qofka soo ogaada sirta ka dambaysa kabaha markasta googo'ay hablahayga waxa uu guursan karaa mid kamid ah hablahayga wuxuuna noqon karaa boqor aniga ay dhaxlada baday markaan dhinto oo xukunkayga la wareego laakiin waxa uu qofka sidaa sameynaya haysta 3 habeen oo kaliya haddii uu 3 habeen ku keeni waayo sirta arrintan ka dambaysa waxaan gelinayaa xabsi uusan noloshiisa oo dhan ka soo bixin warkan ayaa markiiba gaaray deegaanka oo dhan ku faafay waxaana markiiba u riyaaqay oo isugu yimid dhalinyaro fara badan waxay ka soo safreen deegaano kala fogfog mid kastana waxa uu doonayay inuu ka faa'iideysto fursadda boqorku uu soo bandhigay oo ah haddii sirta ka dambaysa kabaha googo'a iyo hablihiisa uu ogaado uu markaa guursan karo mid kamid ah hablihiisa sidoo kalena isaga kadib la wareegi karo xukunka boqortooyada dad fara badan ayaa deegaano fara badan ka soo safray qaarkood xataa boqorro ayay hayeen balse midna kuma guuleysan mid kasta markuu 3 habeen halka taagnaada albaabka hablaha keenina kari waayo sirta ka dambaysa ayaa la qabtaa oo la xiraa waxaana la geeyaa xabsi laakiin dhammaantood mid ayay ka sinaayeen oo wada seexanayeen maalin maalmaha kamid ayaa warku wuxuu gaaray wiil xoolo dhaqata ahaa wuxuu ahaa wiil wanaagsan sahaydiisa ayuu hore ka soo qaatay kadibna waxa uu lugayay dhankii qasriga boqortooyadu ka xigay dariiqana islaan ayuu kula kulmay mucjiso ah way soo gaadhay waxay ku tiri wiilkeygii oo safar dheer ayaan ku jiray waxaan bis laahay gaajo cid waxay siisana ma arkin wax cunaa ma heli karaysaa intuu markiiba ka naxay ayuu sahaydiisii uu sitay gebigeed oo dhanba gacanta ka saaray islaantu waxay baahi daran haysana runtii aad ayay ugu faraxday way u ducaysay oo waxay ku tiri barakow oo hel waxa doonayso waxay aragtay wanaaga wiilkan waxay ku tiri kuwa badan oo adiga kamid ayaa dariiqa ugu soo maray oo dhamaantood dhaafay waxaan se ku siinayaa hadiyad qaaliya waa tuwaal ama go haddii aad huwato waxuu ka dhigayaa qof aan la arki karin halkii aad doontan ayaad soo qarin kartaa noloshaada oo dhan wuxuuna kuu sahlayaa ujeedooyinka mustaqbal aad leedahay waanad guuleysan rabitaankaaga runtii tan aad ayay uga farxisay wiilka in yar kadib intuusan teginna islaanta way la sii dardaarantay oo waxay ku tiri ogow cabitaan kastay habluhu ku keenaan iska jir wiilkuna waa u socday wuxuuna u yimi ilaaladii boqorka wuxuu u sheegay rabitaankiisa markiina waa la soo daayay sida caadiga ahaydna waxa la geliyay gaadhka habeenkii u horeysay mid kamid ah hablihii boqorku dhalay oo qurux badan ayaa cabitaan huruuda u keentay
intuu quruxdeeda la ashqaraaray ayaa ka qaatay isagoo iska ilaabay wixii ay islaantu kula dardaarantay cabitaankii ayaa u cabay wax badanna ma qaadan inta uu ka luloonayay sidii dadkii isaga ka horreeyay ee fashilmay indhaha ayaa durbaba isku qabsaday waanu taagnaan kari waayay si halhaleelana waxa ugu dhacay sariir ay habluhu u dhigeen oo ahayd halkii ay ku shaqooleen raggii hore isaga ka horreeyay waa uu seexday isagoo xataa weliba si daran u khuurinayay habluhuna markay khuuradiisa maqleenayay muraadkooda qabsadeen habeenkii ayaa sidaa ku tegay waagina waa uu baryay wuxuu arkay isagoo sariir ka dul toosay inta uu naxay ayaa u cararay wuxuu isweydiiyey waxa ku dhacay iyo sababta uu fashilmay habeenkii hore habeenkii labaad ayuu albaabka istaagay isagoo doonaya inuu caawa ka salgaadho warka habluhu qarinayaan muddo ayuu gidaarka taagnaa balse mid ka mid ah hablihii oo qurux badan ayaa caawana u keentay sharaab nooc kale ah uusan hore u arag isla sidii habeenkii hore oo kale ayuu ilaabay dardaarankii islaanta caawana waxa uu cabay casiirkii waa uu liqay sidii habeenkii kan ka horreeyay haddana waqti badan ma qaadan oo inta uu lulooday ayaa sariirtii ku seexday wuxuuna bilaabay khuuro daran habluhuna waxay mar kale fushadeen muraadkoodii laakiin markii waagu baryay ayaa uu fikiray wuxuu yidhi sidee ayay waxani ku dhici kartaa wuxuu xasuustay dardaarankii islaantii ahaa hablaha waa kuwo daran iska ilaali cabitaanada ay ku siinayaan wuxuu yidhi malaha waxay igu dari karaan waxaan ku seexdo subaxiina boqorkii ayaa u yimi wuxuu ku yidhi 2 habeen ayaa tegay wax warana imaad keenin caawa oo keliya ayaad haysataa waana digniintii ugu dambaysay haddii aad caawa warkeeni weydo noloshaadu meel baas ayay ku dambaynaysaa aad ayuu warwaray wuxuuna caawa go'aan ku gaadhay in wax kasta oo khaladu hore u sameeyey joojiyo isla waxa uu istaagay albaabka mid ka mid ah hablaha oo ahayd tii ugu yareyd uguna qurux badan ayaa caawa u keentay cabitaan liin ah waxay ku tii kulli waad haraadan tahay ee cab waxau ku yidhi mahadsanid caawase ma samayn sidii habeenadii hore waxau ku daadiyey ubax gadaashiisa ku yaalay cabitaankii loo keenay oo dhan caawa waxuu maagan yahay inaysan sinaba habluhu ku siri karin kadibna habeenka ayaa soo dumay wuxuuna huwaday go'ay islaantu siisay mucjisada ahaa sidii islaantu ballan qaadayna waxuu noqday ku aan la arki karin wuxuuna iska soo furay albaabka iyagoo xataa hablihii aysan ka warqabin markuu soo galana aad ayuu u tacajabay waxa indhihiisu qabteen wuxuu arkay hablihii boqorrada ha is wada diyaarshay taashashkoodii xidhay mid kastana ay labisatay si qurux badan una diyaarsan inay meel aadaan aan laga warqabin laakiin mid ka mid ayaa bannaanka eegtay bal siday u hubiso inuu kadinka taagan yahay iyo inuu seexday waxayna aragtay inuusan kadinka taagnayn dabeetna gidaarka ayay khuuradiisii ka dhagaystay isna si ula kaca ayuu khuuriyey habluhuna waxay maqleen khuurada beenbeenta ahayd markaas kadibna carruuray waxay u qaateen inuu seexday way caawana ku guulaysteen dhagartoodii wax yar kadibna sariirahoodii ayay ka leexsheen halkii ay hore u yaaleen isna waa uu tacajabay markii sariiraha la gurana gadaal amba hoos waxaa ka furantay jaranjaro waa uu yaabay dhammaantoodna iyagoo istabagelaya ayay jaranjaradii hoos uga degeen isna kama hadhine waa uu soo raacay oo waa uu dabagucleeyey cabbaar ayuu jaranjarada hoos ugala degayey isagoo la tacajabsan waxa hablahani ay samaynayaan marba marka ka dambaysana waa uu ku soo dhowaanayey isagoo markii dambena si ismoogaana ama ka warqab la'aana mid ka mid a hablihii ahayd tan ugu yar joogsaday taashkeedii qof ayaa igu joogsaday waxaan u malaynayaa cidaynan arkayn inayna daba socoto laakiin kuwii kale ayaa ku yidhi doqon yahay iska soco mararka qaar baad u hadashaa sida waxaan caqli lahayne gadaasha ayaa ka raacay waanu eegayay dhir qurux badan ayay sii dhex qaadeen caleen ayuu ka goostay waanu sii socday hablihii waxay si soo taageen haro amba webi weyn halkaas waxaa ku sugayay doonyo sida xuurta oo kale u samaysan 12 boqor ayaana wada xilliga ayay ku soo dhawaadeen mid kastana waxay fuushay doon aad ayuu mar kale u tacajabay isna doontii ugu dambaysay ayuu gadaal ka raacay gabadhii yareed ee caqliga badneed ayaa mar kale tidhi caawadoontu sidii hore way ka culus tahay waxaa laga yaabaa in qof saddexaadina soo koray oo malahayna la socdo laakiin sidii markii hore oo kale walaasheed ayaad haddana markan ku tidhi waxaad markasta ku hadlaysaa waxaan caqliga gelayn haddaba isla yaab oo soo saarnow doonta qof hadduu ina la socdo waynu arki lahayne hablihii xilliga kale ayay u soo tallaabeen waxayna arkeen qasri weyn oo qobka ciyaar iyo jaas ka socdo muusiga ka soo daranayaan dhagaha ka ridayo aad ayuu u tacajabay wiilkii ilaalada ahaa wuuna soo dabagalay
isla isaga oo aan sidiisii hore la arkaynin ayuu bartamaha u soo galay qasrigii. habluhu halkaa waxay habeenkii oo dhan kula ciyaarayeen 12 boqor ilaa ay ka daaleen kabahooduna googeen waaguna ka baryay. mar dambe ayaa wiilkii gaajo qabatay wuxuuna isku dayay inuu xoogaa doorshay amba keeg cuno, balse gabadhii yarida ayaa markaa aragtay oo haddana qaylisay. waxay tidhi keegaygii ama doorshahayga ayaa la qaatay, waxaanan arkayn ayaa cunaya. laakiin walaasheedii ka weynida ayaa haddana ku tidhi waad soo waalan rabtaa. si aan laga warqabin ayuu koob dahaba u xaday oo u qarsaday. hablihuna habeenkii oo dhan way jaasayeen ilaa ay ka gaadheen heer kabay ka googa'aan. waagu markuu baryeyna 12 doonyood ayay soo raaceen oo waa la soo tallaabshay. isna waa uu soo dabagalay, iyana intii sariirahoodii isku beegeen ayay jiifsadeen. kabuhuna sidii habeenkii hore oo kale ayay mar kale googo'an yihiin, laakiin markan sirtooda waa la hayaa oo wax badan uma qarsoona. wayse qoslayaan iyagu. kadinka ayuu istaagay. subaxii ayaa boqorkii oo aad u cadhaysan yimi. wuxuu ku yidhi igu dhaqso warkaad hayso. wiilkiina markiiba sheekada ayuu gadaal uga bilaabay ilaa dhammaad, isagoo midmid ugu sharaxay. boqorkii waa rumaysan kari waayey waxa wiilku u sheegayo, wuxuuna ku yidhi waxaan tanaad hadlaysaa ma dhici karto. balse waxau soo qaaday dhartii uu ka sii gooyey dariiqa iyo koobkii dahabka ahaa oo qasriga ka soo xaday. boqorkuna wuu ka tacajamay khiyaanada la yaab kale ee hablihiisu u dhigeen. wiilkii ayaa waxa uu ku yidhi mid ka doora hablahayga ah. habeenkii ayuu si fiican u kala bartay, tii ugu yarayd ee ugu caqliga badnayd ayuu ka doortay. wuxuuna helay abaalmarkii uu boqorku u qaaday wiilka wanaagsan. habluhuna waxay ka xumaadeen in sirtoodu fashilantay, balse waxa ku farxeen hadda in walaashoodii yareed ay guursatay. haddii ay tan iyo maanta nool yihiinna waxay ku nool yihiin qasriga boqortooyada iyaga oo la wareegay xukunka aabahood. sheekada tan caruurey waxaad ka baratay mahmaahda Soomaalida ee tiraahda sir haween lagama sal gaadho. waxaad sidoo kale caruurey sheekada ka baratay in sadaqadu aad la baxdaa ay noloshaada wax badan caawin karto. ha moogaanin waxaa haddayna soo gelaysaa bishii Ramadaan oo lagaba yaabo inay caawa bilaabato. alla nabad ha nagu gaadhsiiyo dhammaanteen, adiga iyo asxaabtaada, familigaaga iyo qof kastoo klibkan dhagaysanayna. waxaan u rajaynayaa in ilaahay nabad ku gaadhsiiyo, nabadna ku dhammaysto bisha Ramadaan. ogow inaad la baxdo sadaqo, noloshaada ayay wax tari kartaa. tan iyo sheekadeenna dambana waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin nabadgeliyo. halkaad naga daawanaysana waa channelkan YouTube ku leenahay ee Dhalaan Koriye. fadlan haddii aad ku cusub tahay sii baahi la wadaag asxaabtaada una gudbi saaxiibadaada kale kugu xidhan.